xafladan lagu caleema saarayay madaxda cusub ee maamulka Qaatumo ayaa lagu qabtay toga Erigo oo ku yaala xuduudda kala qaybisa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya isla markaana 10 kiiloomitir u jira deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool. xafladda caleema saarka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, waxgarad, aqoon-yahano, qurba-joog iyo qaybaha haweenka oo isaga kala yimid gobollo iyo magaalooyin ku yaala dalka Soomaaliya. kahor inta aan la gaarin toga Erigo waxaa qorshaha uu ahaa in xafladda caleema saarka lagu qabto meel 1 kiiloomitir u jirta deegaanka Saaxdheer, balse ma ayan suuragelin maadaama iyadoo diyaarinta xafladda caleema saarka ay socoto uu bilowday dagaal foolkafool ahaa oo u dhaxeeyay ciidamada Somaliland iyo kuwa Qaatumo kaasi oo geystay khasaare, dhimasho, dhaawac iyo barakac. odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo ka hadlayay xafladda caleema saarka ah ayaa soo dhaweeyay qabashada xafladdaasi iyo madaxda cusub ee maamulka Qaatumo iyagoo fariin u diray beesha caalamka, dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya iyo dalalka deriska la ah dalkan inay taageeraan madaxda iyo shacabka Qaatumo. beesha caalamka waxaan leeyahay iyo dawladda aan jaarka nahay intaba gardarrada cad ee xornimo u diidka ma tashan kartid ayaha kama hadli kartid lagu khasbaayo maamulka state Qaatumo state iyo madaxdiisa iyo shacabkiisa waa inaydan ka aamusin hir siyaasadeed iyo mid aadamnimo inaad u fiirsaan baan leenahay iyagana. madaxweynihii hore ee maamulkaasi Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo si rasmi ah xilka ugu wareejiyay Professor Cali Khaliif Galaydh ayaa kadib ku hanjabay in aysan jiri doonin wax wada hadal ah oo ay la galaan madaxda maamulka Somaliland. hargeysa Soomaalinimadu nagama dhaxayso maanta, islaamnimadu nagama dhaxayso, derisnimo nagama dhaxayso, wax aan qoriga wada hadal iyo wada xaajood nagama dhaxeeyaan. ciddii ka hunguri qabtay hadday xagga yaga tahay iyo hadday xaggooda tahayba inay wada hadal iyo wax kale ku xaajoodaan oo ku dhamaystiraan way dhamaatay taasi. maanta hal liqdo. madaxweynaha cusub ee maamulka Qaatumo Professor Cali Khaliif Galaydh ayaa mahadcelinta guud ahaan dadkii ka qayb galay xafladda lagu caleema saarayay kadib madaxweynaha Somaliland ku eedeeyay abaabulka duulaan uu sheegay in lagu soo qaaday. Somaliland iraadada dadkan ma ay hor joogsan karto, mana khasbi karto. colaadda uunbay fogayn. waxaannu walwal ka qabnaa Siilaanyo waxa uu maleegayaa inay colaad xun dadka shacabka ah, ummadda dhulkan wada degta ee ilaa 1 kiiloomitir wada degta, Laandheer ilaa Ceergaabo degta. Siilaanyo colaadduu wado ee boqolaalka teknikada ah uu meel walba oo Qaatumo degta uu ku aadayo waxay ku dambayn doontaa inuu faraha kaga gubto, in shacabkiisa iyo dadkiisu ay dhaxalkaa eedaan. arrintaas waa uga digaynaa. arrin aannu soo dhowaynayna maaha, arrin aannu jeclaysanayna maaha. laakiin haddii nabadda ceel dheer lagu rido, mas'uuliyadda cidda ku ridaa leh. Professor Galaydh ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee maamulka Qaatumo soo mara iyadoo 4 sano ee soo socotana uu haynaya xilkaasi, balse qabashada xilka ka sokow waxaa horyaala xaalada siyaasadeed ee salka ku haya arrimaha isdiidan ee ka jira gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Cumar Maxamed Somane, Universal TV, Garowe.